doorashada halkii loo cayimay intaad ka codayso dalkaya caawima qutee muwaadin codkaaga dhiibo muwaadin codkaaga dhiibo dadka oganayo adaa calanka oo sidee dadka oganayo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو الرئيس وحو ناكسن صحافة وان سلامينا صلاة الإسلام كان نكو سلامينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حيقا وحانو مهنقينا دمان شعب وينها سومالي لان 13 نوفمبر xuquuqdooda dastuuriga qaatay ee codeeyay codayn xor ahayd oo ay u soo banbaxeen sidii ay ugu dul qaateen ee u codeeyeen waan uga mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala isagay mahadoo dhan u dhan tahay ilaahay nagu ilhaamiyay inaynu maanta qaranka Somaliland uu taagan yahay meel wanaagsan waxaan maanta iclaaminaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa xisbiga wadani iyo aniguba waxaanu ka soo baxnay shir noo socday 2 maalmood waxaanu u wargelinaynaa shacab weynaana u sheegaynaa inuu nagu soo dhammaaday jawi walaalnimo saaxiibnimo oo run ahaantii si wanaagsan aanu isugu afkarannay qodobadii aanu ka wada hadlaynay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Cabdiraxmaan oo leh jeclo badan ka leh qarankan turaalana u sameeyay qarankan ahna mudan inaynu ku wada ixtiraamno meeqaamku taagan yahay haddaanu nahay komishanka qaranka Somaliland waxaan uga mahadnaqaynaa shirkii aanu wada galnay 2 maalmood sidoo noogu dul qaatay siday ka muuqatay naxariista iyo turaalaha uu turayo dalkan iyo dadkanba si degan way aragnimo leh ayuu Cabdiraxmaan gudoomiyaha murashax Cabdiraxmaan noola qaatay arrimihii aanan maxayda u falanqaynay go'aana ku gaadhnay aan buugii degmada Berbera ee ahaa codaynta buugii codaynta waanu ka shaafinay waananu isla qaadanay waananu ka heshiinay waananu u sharaxnay waanayna la qaateen gudoomiyaha iyo madaxdii qiimaha lahayd ee la socotayba waxaanu kaloo ku heshiinay inay tirintii gobolka Maroodijeex khaas ahaan degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa ay sidoodii u socdaan taana waanu isla qaadanay shaqadiina way noo soconaysaa sidaasaanu dadweynaha iyo shacabkaba ku wargelinaynaa ama howlwadanadii ka joogay xisbiga komishanka qaranka ay joojiyeen isagoo markaa tabanaya cabashooyin iyo codsiyo u soo gudbiyey komishanka qaranka inaan jawaab shaafi ah laga siinin saa daraaddeed komishanka waa wada hadlaynay labadii cisho soo socday waxaan u mahadnaqaynaa runtii dulqaadkay muujiyeen waxaan isla garanay oo ku soo gunaanadnay in la dhegaysto dalabyadii
iyo codsiyadii xisbiga ee ku saabsanaa doorashada guud ahaan gobolka Maroodijeex degmooyinka Gabiley iyo degmada Hargeysaba dalab kaya ku saabsan gobolada kalena in qoraal ahaan aanu ku gudbinay insha allahu jawaabna aan ka sugi doono commissionka haddii Ilaahay ka dhigo waxaan isla garanay inaan soo celino si loo sii wado tirada guud ee gobolka Maroodijeex labada degmada Gabiley iyo degmada Hargeysaba waxaan kaloo darsaa ka warqabtaan arrinta ku saabsan buugga waxaa buug soo galay gacanta xisbiga shacbigana aan soo bandhignay commissionku maalintii jawaabtay bixiyeenna waa ogeydeen laakiin waxay caddeeyeen in buuggaasi uu ka mid ahaa buugaagtii iyagu ay lahaayeen ee ay ugu talagaleen doorashada waxaan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa uun dhammaan taageerayaasha xisbiga in codsiyadii commissionku ay aqireen inay tixgelinayaan hadday tahay Maroodijeex iyo hadday tahay guud ahaanba dalka waan u mahadnaqaynaa taageerayaasheena waxaan siyaasaan ku wargelinaynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga haddii Ilaahay ka dhigo taa Hargeysana waa la bilaabayaa kuwa kalena jawaabtii iyo tixgelintii waanu ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan commissionka haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.